والله بالله تالله إله إيجاده hadalka aan sheegay hadii hal ben aan ku daro maanta qiyaam عليه soo istaajina ilaahina waa ijeeda ilaahu kitaabka ku dhaaranayaa wallahi oo billahi oo tallahi waxaan sheegay waa السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسود هذا معلم وجلال أصحابتا عصبان سود وين كوه رجوجنا وماشتين لجوجتانكينا إن أصحابتا فيلمكي لواتن إيه أفرت ساعات خضوات الله ساعات هو ده كجرا قلت مرة ساعة كهر حد نوسو جو إن فيلم كسجها وحصاف جرانينك كمال عبدul horta arrintan ninka horta lagu dambaabay ninka odayga ah Kamaal ah runtii qofka markuu kitaab sheekada gaarto gacanta uu ku qabsado kitaab quraan ciyaar maaha kolba arda dhaartiis marka arkay ana shakhsiyan waan qancay waan aaminay ilaahay sarayo hal mar aan ku dambaabay aan dhahayn ninka naagta show uu sixray gabadha maxasika ah waayo gabar dhan oo nool oo sidii carruur dhashay ilmaheeda inkireyso marka aragtid waxa isleedahay waxa qaldan meesha waxa isleedahay soo sixra soo galay oo arrintan waxay u baahan tahay sheekh rushay in loo geeyo laakiin tii ay ahayd filimka isaga ahaa Kamaal hadda soo fadhiistay asoo meelkiisa qabo taam ah yar walaalkiis inuu oomena ag fadhiyo video bilowgiisa soo daawatana soo dhaaranayo ay horta wax walba kala dhigay wuxuuna sheegay asoo kitaab gacanta ku hayo inuu ilaahay la og yahay uusan war ka haynin gabadhan inay ilmo dhashay laakiin waxa dhacday isla videogaas ayagoo ku jiro asay yarka walaalkiisa ayay waceen gabadhii hani qadka soo geliyeen ayna sheegtay ayna qiratay inay ilmo dhashay laakiin waxa uu kalifay ilaa hadda ma garanka inay ilmaha qariso laakiin logic ahaan marka loo fiiriyo waxa isleedahay in qof iska xanaaqay miya qof oo runtii nolosha Sweden wixii ka hormaatay miya ma shaydaan kala jiro Allahu a'lam ku dambaabay karno laakiin Kamaal Cabdul waxaan leeyahay niyow dhaartaada kolba waxaan umeena qof walba oo muslim ah oo ilaahay maskax iyo damiir siiyay inuu ku qanci doono wixii oo laga sheegay waa waxa adig gacanta ku haysto baaheed waayo hadda adig gabadh u dhawaan lahayn waxa dhib horta ma dhacay markaas u fiiris laakiin waxaan wax keenay waxa way odayga iskaabul lama ku daahay ma aqaan wax badan oo Malaysia joogo Malaysia oo qaboobo ay taxal odayga waa ka dhacday sirta ku imaato laakiin asaga wuxuu noo sheegay wixii ugu muhiimsanaa waxay ahayd arrintan inuu bari ka yahay uusan ogeyn wallahi been in sheegay maalinta ku arrintan arka waxaan isdahay ninka ama wax loo qoriyay oo san oo macnaha gabadhan oo arrintan uusan ogeyn inay ilmo dhashay laakiin haddana qof aday oo aan noolaatay nool in dhaxmartay joog degan la qaateen oo macnaha nool guri wax la gaaray inay single mother inay macnaha qof oo على تعالوا فهم قلتي waxaan ka wado waa la kala ogaan karaa inaan si guud gal ma rabay dadka qabrada oo aragada waxaan soo maray fahmi karaa marka على تعال Kamaal Cabdul arrintan waa cadeeyay wuxuuna sheegay in arrintan uusan waxba ka ogeyn bari uu ka yahay wuxuu ogeyn ay ahayd in gabadhan ilmo dhashay uusan war ka haynin loo qariyay qof uu karin ee tahani hadda marka dulmiga oo weyn wuxuu ku dhacaa gabadha hani la dhahayo sabab walba waxa uga dhaco waayo ninkii hadduu soo fadhiisto kitaab gacanta ku qabsado wallahi hadduu soo fadhiistana isku dhaaran lahaa ma la aamineen laakiin kitaabka quraanka ciyaar ma wuxuu haystay buug ma ahan kitaab waa ana dheey ku arkin inigu aragtan midda kale tan yarka ag fadhiyo wuxuu yar oo maasha Allah ilaahay iimaan si degan oo isku dayay inuu wax walba saxo intii ku dambaawday Kamaal oo dhahday sixir u sameeyay horta waxaan dhihi lahaa niyow waa degdeg wax fiican ma ahan kolba wixii jiro gabadhan waxa laga yaabaa in wax kale sheegi doonto Allahu a'lam inaan ku degdeg ma fiicno YouTubers fara badan caan ah arrintan gacmaha la galay oo meel dib la gaaray waxa banaan keenay macnaha inay banaan keenan si ku fiicneed oo ah hada marqaatiyaashii maanta soo baxeen oo dhaheen anaka ogeynay arooska anaka ogeynay anaka joognay rag badan waxa arkay oo isu dhow ku nool ama daafaha Yurubta kala wadamada kala Yurub ku nool oo dhahay xaqiiqada banaankeena arrintan la faajacay la yahay oo dhahayana
gabadha maxaa daare oo arooska ana ka adeegay mid dhahay arooska ana bariiska dhinac ka cunay ana shaqeey ugu dambeyn arrintii Kamaal way u cuntu maysay waxay ku qasabtay inuu bulshada hor keeno hani oo dhahayso ilmaha ana dhalay saa'ol soconiyo waa asagana kitaab gacanta saaray ninka oday waa lagu dambaaway saynay sheegay kolba waa wax badan oo run waa laga sheegay wax badan oo been waa laga sheegay adduunka saaska ah marka arrin faraha la gashay tan oo kale iska dhacdaa kolba asagana 10 in noqonto Oman hadda kadib uu ka fiirsan doono markii ugu horeysay oo runtii gabar Soomaaliyeed oo I mean nin Soomaali rata oo la dhaho islaan oo la baxsaday islaan oo la qoray islaan oo qarsaday islaan wax sameeyay asuku maaha laakiin asaga wuxuu ugu doonaa waxay ahayd gabar dhan oo joogto gurigeeda 5 caruur haysato family dhan buuxo ayuu gabadha intuu macnaha oo wuxuu ku akhriyo manaqaan ula baxay jacayl wuxuu u sheegay ama ayda diyaar u ahayd Allah wacala manaqaano macnaha ay soo fadhiisto dhahdo ilmahaas anama waa dhalinba inkiraad noocaas ama hortuliga markii ugu horeysay ragga inta waxa lagu eeday jiray ragga ilmahooda dayaceen ilmahooda inkireen ilmahooda macnaha islaan kale ka raaceen islaantii ilmaha isku dayaceen waxyaabo badan ragga inta badan lagu dacaydeen ragga Yurub ku nool gaar ahaan reer Sweden laakiin hadda gabadha waxay noqotay gabadha ugu horeysay والله المهدة ضيعت المهدة كعرفت المهدة سايش المهدة نينك أو عرفت المهدة إنكرتي معنا تبي نوع أتذكر هرطة مدة وهرسي رجع مركو حيابا أنا كده عم كسو فيرس لكن كمال عبد الله وحنكو أمانة إنه أردن صافي جرى وأصلا هدو أعمس لها طبعا سؤال ربنا اللي سويدنا هاي أنا حن سويدنا ده هاي كمال أردن هدو بريكي هاي أو أوجين إنه جبنا خيانته موسوف ديستم مرها نمي أنت ما لو سمي أنا مقالة خيانة مؤجن المدة الشيء أنت ورك ما هينين قفت السينجل ماذا أم نجيب روح بإسكو شكته ننقو قناعها وكل عمل معناها هو واحد عادي مقطع معناها ولا قادن كرواية لكن مسنانت فرح بدن على حكي نسي إنه وحياة بدن أوجيه عمل شكل مع عاص عمل ووراي لكن ما أنت وانكو أمانة شخصيا إنه سوف ديستو وأوضها نمي أنت أنا بريان كهاي إلها إلى أد صار صعص Soomaali waayo nin caan ah magac bulshada kule waayo dabcan ehel iyo qaraaba ku xiran asxaab ku xiran walaal ku xiran gabadha sidoo kale walaal asxaab ku xiran naftada ku xiran oo doonayo sida wiilka dad looga naxay ee gabadhooda ay kana uga naxayeen gabadha aan koodna ka wada naxayno haddii maskaxda xitaa wax yar ay si wax yihiin xitaa Allah caafiyo u duceynayna waaladeena waxaan leenahay qalbiga Allah inuu dejiyo ognahay mas'uuliyadda saaran inta leegtahay iyo fikir walba iyo dareen walba inuu jiro qof gabar la shay ama gabar dhal ma dareemi karo waxyaabana kale waa mas'uuliyad aad u weyn asxaabta waxa rabeen in la wadaago qirashadaas Kamaal uu qirtay waa filimkii socday ultimate maray aamin ayuu soo afjarnay kan ma rajataan filimkii markuu gabagabada maray aktarka waa dhintay waxa ma hadda wax badan la shay inay jiri doonin arrinta gabadha soo afxirantay waa ninka furaheeda hay Kamaal oo ah asan uu soo afjaray videogaas rabeen in la wadaago asxaabta آدم ما زلنا أصحابتنا عصب كمان لو حلي هراء أسرع متكلم قير قبط الله كوسرنيه هراء أسرعنيه إن شاء الله قبل ما نسيت تركي كاسب وحنكوب ضن صوت تقريبا ما شكل ما تمركز لها بس حراء رح بعمقله جوجان حمر توريه قبل ما نسيت سودن تجوجان قبل كلا خرح بدن كير كقال الجسم الله كوسه العشق يسته تنو كلاتنا مرضى ميقول عن وأي طلب أصحاب الفيديو انتوا سووا قبل وانا ما سنزل الجوجي تانكين جرى كنا سبسكرايب